السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري ميل كاستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee maxaa cusub runtii waxaanu eegi doonaa wararka ugu dambeeysiiba suuqa kaliibsiga ciyaaraha ayaanu eegi doonaa waxaan ognahay in iminka la joogo xilliga aad moodo in the last minutes la joogo runtii inta badan waxa la dhahaa waqti ugu dambeeya inta badan saacadeyn kara koox ka soo diray inay isbedel ku sameeyaan shaxdooda rasmi ah inay ku duulaan ciyaareedkan inta ka dhiman siba waxa jira kulamooyin ka tirsan Champions League kulamada kale horyaalada kala duwan aad marayaan meel asaasi ah runtii marka waxa jira dhowr ciyaaryahan aan eegi doono muhiim ka mid yahay laacibka naadiga Fiorentina aad moodo inuu ku biray koox kale soo kaleetiyo waxaan eegi doonaa xaaladaha Hazard soo kaleetiyo Bale iyo waliba ciyaaryahanno kale muhiim ayaan eegi doonaa wow أنا عصرت السبسكرايب نوصل هذا نجا مثلا لايك نودي رجلي سوين هلا ساعة وأنا أكسن سيدا وكلاتيا أهلا وسهلا إمك هديان كوبيلانو عياران لوز دياز ولاعب هراء كوعدا كوبدا عكتي بورتو إمك سير رسمي يجو بيري نادي ليفربول ليفربول يا إمك كوتشرتا كان شلبات يقول ديالما إنه كوجلستان هوريال كبريمير ليغا عياريان كان لوز دياز ياد مودين ورنتي يجو بيري عجاي كوعدا كوبدا عكتي بورتو نادي ليفربول أدوندن 75 milyan runtii waa lacagan caadihin ciyaaryahankan ayaa soo kale waxa doonayso naadiga Tottenham Hotspur haasaate ciyaaryahan Luis Diaz ayaa go'aansaday inuu ku biro kooxda kubadda cagta Liverpool uu maamulo tababare Jurgen Klopp runtii waxaan moodeen ciyaaryahan Luis uu qandaraas muddo dheer u socday kooxda The Reds kaasoo gaaray ilaa 27 waa runtii heshiis ku kacay 5 sano ciyaaryahankan aad moodeen ciyaaryahan ay inta badan ay ku duusho naadiga Porto iminka waa laacib ka tirsan kooxda Reds naadiga Juventus ay waxay gacanta ku dhigeen ama si rasmi la soo wareegeen ciyaaryahan Dusan Vlahovic waa laacib hore kooxda kubadda cagta Fiorentina u dhashay dalka Serbia kooxda Juventus ay waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta The Gunners ahna koox ka dhisan dalka Ingiriiska waxaana kooxda Juventus ay ku qaateen ciyaaryahankan adduun dhan 70 milyan runtii waa ciyaaryahan Serbiana oo inta badan la dhigi karo waxay u baahantay naadiga Liverpool naadiga Juventus aanayo Juventus ayaa moodaa runtii in dhanka gool dhalinta ay sameeyeen ciyaaryahan runtii la dhigi karo waa striker ama kooxda kubadda cagta Juventus ay inta badan ku tiirsantay dhanka gool dhalinta liiga marka ciyaaryahankan Serbianka marba hadii helaan waxa macquul ah in ciyaaryahan Morata oo iskaga tago waxa معقول أن دوغ لابتو هوريالكا إسبانيشكا سيبا ناديغا بارسونا waxaa soo kale ciyaaryahankani doonayso naadiga Arsenal horkaco tababare Mikel Arteta runtii ciyaaryahan Hilovic ayaa mooday inuu doorbiday inuu ku sii nagaado horyaalka Serie A isagoo yidhi waan aqaana sida loo xamaasho horyaalka Serie A marka waxaanu ku biiraya naadiga Juventus go'aanka isaga ayaa qaatay sababta mooday inuu ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus oo imika ku jirta kaalintii afraad ayaga kala horantii miiska horyaalka dalkaasi ee Serie A ciyaaryahan Paul Pogba aad moodeen qandaraaska uu kala joogo naadiga United uu ka harsan lahay ciyaareedkan dhamaadkiisa oo kaliya tababaraha kooxdaasi Ralf Rangnick ayaa sheegay in Pogba u baahantay naadiga Manchester United aad moodo Pogba soo kaleta inuu ku qancay hadallada iyo waltashu la yeeshay tababaraha cusub ee naadigaasi Ralf oo la filayo inuu qandaraas cusub saxo naadiga United lana sii joogi doono warar kale heleen waxa soo kale sheegay inay macquul tahay in Pogba iska tago Man United ku biyo kooxaha Real Juventus Bayern Munich iyo PSG hase haatee tababare Ralf la hado wargeyska Deportivo ka soo baxay dalka Isbaanishka ayaa sheegay in boqol uu hubo in Pogba uu sii joogi doono naadiga United qandaraas cusubna u saaciday doono si uu sheegay wargeyskaasi Deportivo hase haatee inta badan lama sadaalin karo mustaqbalka ciyaaryahanka halku yaalo waxaan ognahay in Pogba uu United ka dalbaday inuu ka qaato toddobaadkii adduun dhan 400 kun taasaan moodin United imika aysan diyaar u yahin ciyaaryahan Ronaldo ayaa imika ah ciyaaryahanku dhanka mishaarka badan soo ka qaato 480 kun soo kale ciyaaryahanka daadeer Amad Diallo ayaa ku biray naadiga Rangers ahna koox ka ciyaarta horyaalka dalkaasi Scottishka ciyaaryahankan ayaa kulankiisa ugu horeeyay wuxuu ciyaaray maanta gool ayuu noo dhalay runtii kooxda kubadda cagta Rangers inkastoo kulanku ku soo idlaaday 3-3 ay la galeen naadiga Ross County imika Rangers ay hogaaminayso waxa ay leeyihiin 55 dhibicood halka Celtic ay ku jirto kaalinta labaad iyagoo leh 53 balse ay kulan baaqi haystaan haddii ay balso kooxda kubadda cagta Celtic wali Rangers ay hogaanka ku sii qaban karto ilaa iyo 2 dhibcood
kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaaryahankooda Jorginho runtii waxaa la dhihi karaa waa ciyaaryahan la dhihi karo kooxda kubadda cagta Chelsea oo ay baahantay iminka hase haatee waxa soo galay doonistoosa kooxda Juventus aad moodinay doonayeen inay dib u dhis weyn ku sameeyaan kooxda Juventus oo aan iminka ku jirto meel aan looga badanin runtii ciyaaryahan Jorginho fahantiisa aad moodaa inuusan boos joogta sidaas uusan ka haysanin kooxda Chelsea inkastoo la dhihi karo waa ciyaaryahan laf dhabar u ah aynu u baahantay naadiga Chelsea sidoo kale haddii la eego tababaraha kooxdaasi Thomas Tuchel ayaa mooday inta badan inuu korsiga keedka uu ku hilmaamo ciyaaryahan Jorginho iminka kooxda Juventus ayaa si waliya ku doonayso tababaraha kooxdaasi ayaa sheegay in ciyaaryahan Jorginho uusan beex ka ahayn kana mid yahay qorshaha uu iminka ku dilay isaga hase haatee Juventus ayaa ilaa imika ku dhagan inay soo qaataan ciyaaryahan Jorginho iyagoo u ballan qaaday boos joogta لاعبka naadiga Arsenal Aubameyang aad moodaa runtii inuu waayay kabtanimada kooxda soo kaleeto wuxuu lumiyay booskiisa joogtada ee kooxda kubadda cagta The Gunners imika waxaa doonaya kooxaha Barcelona iyo Juventus Barcelona ayaa ku doonayso ciyaaryahan Aubameyang inay ku qaataan Siamaha soo kaleeto Barcelona ayaa ciyaaryahankani diyaar u ah inay ka gataan naadiga The Gunners hase haatee ilaa imika sayesha wargeyska The Deportivo wargeyska The Bild iyo weli wargeyska kale la yiraahdo The Daily Sports kulli waxay sheegeen in imika aysan wax qorshe u jirin in ciyaaryahankani uu gado ama si amaha u dhiibo tababare Mikel Arteta hase haatee Aubameyang nafantiisa ayaa sheegay inuusan ku qanacsanin inuu keedka lagu hilmaamo korsiga keedka uu doonayo iska tago kooxda kubadda cagta The Gunners agay kooxda kubadda cagta Los Blancos ama Real Madrid hadiana waxaad moodaa in dhowr ciyaaryahan ay doonayaan kooxda inay fasacaan maalmaha ka dhiman aga suuqa kalibsiga ciyaaryahan Sapros waa laacib runtiisa ama uu ciyaar jiray kooxda kubadda cagta The Gunners aad noo soo dhex muuqday shaacda rasmiga kooxdaasi dib ay ugu laabtay kooxda Real Madrid hase haatee wax boosa maysan keelin shaacda rasmiga uu diyaariyo macallin Carlo Ancelotti iminka waxaa doonayso kooxda Real Betis ayaad moodaa in iminka hoggaanka dhankaasi ee la liigahay meel fiican ku jiraan iyagoo ku jiro kaalinta saddexaad iminka waxay doonayeen inay qaataan adeega ciyaaryahan Sipalos ee kooxda Los Blancos ee ciyaaryahankan ku qiimeynayeen adduun dhan ilaa 18 milyan soo kale ciyaaryahan Hazard waa laacib kale oo muhiim ah runtii u baahantay inay iska jirto kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahankan ayaa laga sheegay inuu dib u laabto horyaalka Premier League siba kooxda Chelsea waxa soo kale doonayso kooxda Arsenal Newcastle soo kale way doonaysa soo kale wuxuu doonay inuu dib u laabto kooxdiisa hore ee Lille kooxda Los Blancos ayaa ka go'an gibihanba in ciyaaryahan Hazard uu iska tago kooxda waan ciyaaryahankan moodin inuu yahay mid ugu qaalsan ebid ay kooxda soo gaartay iyagu ku soo qaateen adduun dhan 150 milyan ay u soo qaateen kooxda Chelsea koox ka dhisan dalka Ingiriiska Hazard ayaa mooday inuu lumiyo booskiisa joogtada dhaawac ayaa soo noqon marka Real ayaa mooday in wax boos aysan u ballan qaadi karin siba boos joogtiya ciyaaryahan kale ay doonayso inay iska fasaxaan kooxda Los Blancos waa ciyaaryahan Gareth Bale mishaar wali ku qaatay kooxda soo qaatay toddobaadkii adduun dhan 600,000 Bale ayaa sheegay inuu dhameysanayo waqtigiisa ama qandaraaskiisa waxaad moodaa in la filayo soo kale inuu ugu laabto caga iyo horyaalka dalka Wolves waxaa doonayso kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Wolves ka ciyaarta horyaaladooda marka waxaa doonaysa ciyaaryahan soo kale inay doonayaan siba kooxda kubadda cagta ee Newcastle ayaa doonayso hase haatee ciyaaryahankan ayaa doorbiday inuu dib u laabto dalkiisa hooyo ee Wolves soo kale kooxda Los Blancos waxay sheegeen in Bale soo kale aysan boos joogta u haynin ay macquul tahay inuu iska tago kooxda kubadda cagta Los Blancos inta ka dhiman suuqa kala iibsiga ciyaaraha ugu dambeyntii waxaan eegi doonaa ciyaaryahan Frank Lampard oo dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League iminka wuxuu noqday tababaraha buuxa ee kooxda kubadda cagta Everton ayaa tababarahooda Rafael Benitez shaqada ka carisay kadib markay kooxda la soo gudmaaneen guuldaroon dhowra ayna ku jiraan iminka meel aan lagu badan runtii kooxda kubadda cagta Everton tababare Lampard ayaa moodaa runtii inuu iminka yahay tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Everton waxaa soo kale kooxdaasi qandaraas dheer u saayay ciyaaryahan kale oo la yiraahdo Lewis Dobbin kaasaad moodaa inuu qandaraas 3 sano u saayay kooxda Everton ayaa soo kale iminka ku jirto baadigoob ciyaartoy dhowr ay soo qaatiyaan si ay wax ugu bedelaan shaacda rasmi ku buduuli jiray tababar Rafa Benitez iyo tababaraha si ku meel gaar u hay kooxdaasi Ferguson iminka Lampard shaqada ayuu la wareegay waxaan moodaa inuu soo kale soo qaadan doono ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea Odor kaasad moodaa runtii in la dhihi karo boos joogta kameeso balse marba hadduu doonayo Lampard waxa macquulan ciyaaryahankaas uu ku soo biro
kooxda Everton imku ka haya tababare Frank Lampard waana tababarihii hore kooxda Chelsea waana ciyaaryahan hore kooxdaasi ee runtii inta aad moodaa inuu yahay ciyaaryahan lagu xisaabtami jiro xilligiisa Chelsea waana ciyaaryahan inta badan ay ku faani jirtay kooxda Blues ahna koox ka dhisan isla dalka Ingiriiska warar kale aan heleen waxaa sheegay soo kaleetay kooxda kubadda cagta Everton waxay doonayaan ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara nadiga United ee Van der Vaart kaasaan moodaa soo kaleetay inay doonayaan kooxaha Newcastle United iyo waliba Crystal Palace barnaamijkii sport ya ciyaari wanaagsantii aad ay u maasantiin waqtigiina waxaan leenahay mahad sanad